madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici ayaa waxa uu dhagax dhigay dhismihii ugu ballaarnaa ee hay'adda UNICEF ay ka hirgeliso Soomaaliland. madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici ayaa maanta dhagax dhigay dhismo cusub oo ay hay'adda UNICEF ka dhisayso magaalada Hargeysa. dhismahan cusub ee hay'adda UNICEF ay ka dhisayso magaalada Hargeysa ayaa noqonaya dhismihii ugu ballaarnaa ee hay'addaasi ka hirgeliso wadamada Bariga Afrika, waxaana lagu talagalay inuu noqdo xarunta hay'adda UNICEF ee wadamada Bariga Afrika. waxaana laga hirgelinayaa xaafadda Masallaha ee magaalada Hargeysa kaasi oo cabirkiisu dhan yahay 1000 mitir oo square ah. waxaana la filayaa inuu dhismahan xaruntu uu dhamaado muddo 12 bilood ah. dhulkan ayaa ay ugu deeqday dawladda hoose ee magaalada Hargeysa. madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici ahna kusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo munaasabadaasi dhagax dhigeedii hadal ka soo jeediyay ayaa ka warramay qiimaha ay ugu fadhido dhismahani Soomaaliland, waxaana kamid ah hadaladiisii. dhammaantood waxaan ku salaamay salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaan kadib runtii waxaa maanta farxad weyn guud ahaan shacbiga reer Soomaaliland, xukuumadda Soomaaliland waxaa maanta farxad weyn u ah in maanta halkan u nimaadno xafiiskii ugu horeeyay ee UN United Nations hay'ad kamida ama qayb kamida jamciyadda quruumaha ay maanta ka dhisayaan caasimadda Soomaaliland Hargeysa. waa horta farxad ku waabeen oo tahay talaabo waxa kale aad iyo aad noogu si farxada inuu xafiiskani waliba yahay xafiis kii maanta ugu weynaa ama meel ay UNICEF leedahay geeska Afrika xafiis ugu weyn noqdana taasina waa farxad labaad ee runtii noo soo tahay. waxaan aad iyo aad ugu hambaleynayaa ama ugu mahadnaqayaa hay'adda UNICEF talaabada horseed kale ee ku dayashada mudan ee qaadatay oo qabo inay ku dayan doonaan hay'adaha qaybaha kale ee jamciyadda quruumaha ka tirsanay. taasi aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. waxayna muujinaysaa sida ay ugu diyaar tahay hay'adda UNICEF ama commitment-ka ay gashay ee inay ka mid dhaliso millennium goalka sanadka 2015 la higsanayo si caruurta iyo dadka dhibaatooyinka u nugul ee haweenku ka mid yihiin wax qabadkooda ugu soo dhawaatay maadaama xafiiska ugu weynaa geeska Afrika maanta ay ka dhisayso Hargeysa. aad iyo aad baan ugu hambalyeeyaa ka dawladahana aad iyo aad oo soo dhaweynaa sida Iskandar sheegana waxay wax ku hagaagayaan ama lagu gaarayaan goolka ama meesha la higsanayo wada shaqaynta ay naga dhaxaysa wasaaradaha hay'adaha dawladda kale hay'adda maarta UNICEF. taas waxa keenaysa in goolka doonina gaarno anagoo dhankayaga sidaan dhulka u bixinay ayaan diyaar ugu nahay in maarta aan qaybtada ka qaadano hadafkaana aynu wada gaarno insha Allah 2015 isbedel weyn aan ka sameeyno hadday tahay xagga biyaha, xagga caafimaadka, xagga waxbarashada, saddexdeed maartay shay asaasiga bulshada ah ay ka shaqeyso UNICEF. aad iyo aad baan ugu hambaleynayaa waana soo dhaweynaa waxaana diyaar u nahay waxa wixii maartay wada shaqeyna inaan kala shaqeyno kuna aan fududeynana hawl. wakiilka Soomaaliland ee hay'adda UNICEF Iskandar Khan oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa ka warramay isla markaana sheegay in hay'addoodu dhismahan ugu tala gashay in lagu dhameystiro muddo 12 bilood ah. waxa kale oo uu sheegay in xaruntani tahay ta ugu ballaaran ee hay'adda UNICEF ka hirgelinayso wadamada Bariga Afrika, isla markaana hay'addoodu UNICEF sii wadi doonto taageerada ay u fidiso dadka nugulka ah ee reer Soomaaliland iyo meelaha kale ee ku dhow Soomaaliland si looga midho dhaliyo ku talagalka caalamiga ah ee sanadka 2015. Iskandar Khan wakiilka Soomaaliland ee hay'adda UNICEF waxa uu u mahad celiyay dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa iyo xukuumadda Soomaaliland sida xilkasnimada leh ay u wada shaqeeyaan isla markaana ay wada shaqeyntu uga dhaxayso. waxaanu kale ugu mahad celiyay isagoo soo kale ka mahad celiyay dhulkan la dhagax dhigayo oo cabirkiisu dhan yahay 1 kilomitir oo isku wareega munaasabadda dhagax dhigan xarunta cusub ee hay'adda UNICEF ka hirgelinayso magaalada Hargeysa. waxa kale oo ka qayb galay wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland iyo mas'uuliyiin ka kala socotay hay'adaha samafalka ee dalka ku sugan. maya dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa jiray Xuseen Maxamuud Jiciir oo isagu ah mas'uulka dhulkan bixiyay dawladda hoose ugu deeqday hay'adda UNICEF inay ka dhisato xaruntan ayaa isaguna halkaasi goobjoog ahaa.